hay-adda bisha cas ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa gaadhsiisay 100 qoys oo ku nool deegaanka barwaaqo ee gobolka Buuhoodle ee Somaliland Sakaatul Fitri ay soo bixiyeen 1,000 qof oo reer Imaaraad ah kuwaasoo ay ugu talagaleen dadka deegaankaasi ku nool. Sakaatul Fitriga la gaadhsiiyey dadkaasi ayaa dhammaan 2,500 oo kiiloogaram waxaana qoys kasta helay 25 kiiloogaram oo bariisa waxaana goobta qaybinta raashinkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan. alxamdulillahi wakafaa wasala allahu calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahu biixsaan ilaa yowmi ddiin. alyowm naxnu fi qaryati lbarwaaqo fi طawaaxi muxaafadati buuhoodle ardi somaal wataariikhu lyowm 30 abriil 2022 موافق 29 من رمضان 1443 هجري. وتسلمنا من مكتب هلال الأحمر الإماراتي في هرقيسة زكاة الفطر من 1000 مؤمن من الإماراتيين ويرسلون إلى إخوانهم قرية البرواقة أرض الصومال في محافظة بوهودله. والعوائل الذين يستفيدون هذه الزكاة عددهم 100 وكل عائلة تأخذ 25 كيلو جرام من الأرز. ومجموع الزكاة التي وصلتنا في مدينة برواقة هو 2500 كيلوغرام أرز. ونسأل الله أن يبارك على الإمارات وخاصة الذين يدفعون من هذه الزكاة وأن يطهرهم وأن يجعل ميزان حسناتهم. ومعنا مسؤولين القرية مثل مدير القرية من جهة الحكومة ونائب البرلمان في هذه المحافظة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركهم الذين أخذوا هذه الزكاة